shirkadda isgaarsiinta Somtel oo maanta munaasabad ballaaran ku qabatay hotel raysay magaalada Boorama ayaa waxay ku daafurtay adeegga casriga ee 4G oo dhammaan bulshada ku dhaqan magaalada Boorama ay maalimihii ugu dambeeyay aad ugu hanqaltaagayeen xafladani waxay miseersay loo soo gacsimay ayaa waxa soo qabanqaabiyay maamulka shirkadda Somtel ee gobolka Awdal munaasabadani daafurka adeegga 4G ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka heer gobol iyo heer degmo aqoon-yahano waxgarad iyo ururada arrimaha bulshada oo hore waxa halkaas ka hadlay oo munaasabada furay gudoomiyaha shirkadda Somtel ee gobolada galbeedka Soomaaliland Cabdiqani Cali Xasan waxaana uu ka xog warramay faa'iidada adeegani 4G adeegga 4G wuxuu saameeyay qofka xaafadda institutionka qaraabada iskuulka inta wuxuu saameeyay inuu aaladda 4G-ga uu qaadan karo jeebadiisa uu ku qaadan karo dhammaan caailada iyo dhammaan institutionka oo dhan uu taa isticmaali karo ayuu saameeyay si loogu fududeeyo maadaama uu internetku yahay adeegga keliya ay dadku ay ku leeyihiin ee aan isaga la'aantii aan wax shaqo la qaban karin jirin oo every minute ama every second kasta oo jira aan laga maarmin taasi ee loo sii fududeeyay Ismaaciil Cabdi Riiraash oo ah gudoomiyaha daabshiil ee gobolka Awdal oo isaguna madasha ka hadlay ayaa waxa uu xusay shirkadda daabshiil ee Somtel runtii halkan daabshiil group isla wadanahay waxay maxaan ku dhaxweeyay maanta idin soo jeedinaysaa inay ka qabtirto adeegga internetka runtii baahi weyn loo qabay oo gobolka su'aalo badan la isweydiin jiray loola jiray halka 3G-ga maanta la joogo talo shirkadda maanta kor uga kacay marka su'aalihi aad isweydiinayseen aad lahaydeen maxaan ku dhaxweeyay shirkadda Somtel maanta maxaan ku kor uga kacay 3G-ga sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay oo hadalka iska daba qaatay saraakiil ka socday shirkadda Somtel qaybtada magaalada Hargeysa mas'uuliyiin ka socday jaamacadda Amuud iyo ururada arrimaha bulshada waxaana ay dhamaan ka marxaati kaceen in xawaaraha adeegani 4G yahay mid aad u sareeyo oo ay ka faa'iideysan karaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana hadalloodii ka mid ahaa shirkaddu sadowtii waxay heer ay kaga jirtay runtii aad iyo aad u qaaliya marka la eego adeegyada ay bixiso xagga bulshada sida lagu adeegto gaar ahaan internet shirkaddu runtii waa shirkadda kaliya ee hoggaansan oo oran karna xagga internet waa shirkad runtii reebtay baahida ay dadku u qabeen waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay adeegan cusub ee maanta inoo daahfuray adeegga cusub ee 4G ee internetka xawaarihiisu sareeyo ee maanta inoo daahfureen Somtel run ahaantii waan ku hambaleynayaa run ahaantii waan soo dhaweynayaa aniga ku hadlay afkii urka haweenka qaranka ee now 4G waa internet warfaafinta gobolka u fududeynaya sidii ay u adeegsan lahaayeen dirista wararka iyo isticmaalka adeeggaasi iyadoo awal aan had iyo jeer ku soo caban jirnay shirkadda Somtel isku soo duuba adeegani casriga 4G ee saaka daafurtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa ah mid muddooyinkii u dambeeyay ay aad uga dharsogayeen bulshada ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaana uu adeegani kaalin mugle ka qaadan doonaa haqabtirka bulshada xagga internetka waa Mustafa Caraale telefishinka caalamiga Somali News magaalada Boorama